السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتي اللي ما في عنتهين وينو كلا بادني أو كلا باديوني أو وقت دير كلا مقنين إلهي وحن كرت شيني إن أنا وطبيعي عافمات إن نبتهين إن عافمات قبطان كان إحنا قعنتي إذا وحوض ما قبطه وحبان كقرقرية ويرا يرا إن يرا ويرا عبان هسا وحن ربا horta waynu kala baadiyeen waqti dheer baynu kala maqnayn waxbarashadii waxaasa ayaa ila tagto dhinacna ma ka yara shaqeeyay iga raali ahaada waxaan rabaa inaan ka hadlo mutaqaaniin hablaha Soomaalidu sanadkan waxaa soo kordhay 200 halaad baa la bixinayaa gabdho meel walba la taagan haddaan 500 halaad la iga bixinayn haddaan intaa soo geela la iga dhiibeen haddaan kiika waxaan ka wadaa waxaan rabaa caawa inaan laba eray idhaahdo laba bes soo dhawaada subscribe iyo saara channelka soo dhawaada anigu barnaamijkan ka dhaxlay amaba walaashay bulo qareen hayaama waxay tiri waan ka badnahay anigu jid hablaha Soomaalida mashaakilka haysata waxa weeyaan looma sheegin waxa yihiinba marka la eego siday u dhaqmayaan la eegana waxay u eeg yihiin waxay u eeg yihiin badeecad suuqa taalo la soo iibsaday ama la kala iibsado oo hadlaysa waliba tan ugu edabta daran leh badeecad waliba hadlaysa oo iyadu baayactamaysa oo haday jiri lahayd tan ugu edabta daran weeyaan iyagu waliba waayo dhahad ma caay mana aflagaadeynaya xanaaqina bal gabar Soomaaliyeed nolosheeda wixii iyada faa'iido u ah ee wadan u ah iyadu wixii iyada nolosheeda sideedaba wuxuun bay leedahay faadibkeeda wuxuun bay khalad haday gashoon bay ciqaabtiisa inay marto in la caayo in la aflagaadeeyo hadii la kufsado iyo hadii wax dhaawac loo geysto iyo hadii ay dhibaato ku dhacdo iyo hadii la guursado wax alla wixii outcome ka imanaya inta niman loo geeyo bay qaybsadaan oo kan bixiyay ka dibka u geystay kan magcelinta ka keenay iyo kuwa la siiyay iyo kuwa qaybsaday waxba waa niman gabadhba hadii la kufsado imisaan soo taagnayn idinkuna aad soo taagnaydeen gabadh la Soomaaliyeed oo la kufsado la xoogay hadiiba aan kuwii xoogay naag looga dhigin oo haday shan ahaayeen mid looga xulin yaa oo la yiraahdo mag iyo waxa la kala qaadanaya magangel waxa la kala qaadanaya imsaad garanaysaa intii la keenay in nimaninta loo geeyay ay qaybsadeen iyadoo aan 100 shilin iyadoo aan 100 shilin ay ka soo gaarin ee ama kiyada qabay haday wala qabay ama ninkii dhalay iyo odayaal uu soo kaxaystay oo reerkooda intay ku qaateen ay wadan maran ay halka laga mariyay faramara imisa gabadh Soomaaliyeed iyo wiil is xushay oo isdoortay intii isguursadeen idoo isguursanayna wax la soo helay wixii ninkaas soo helay wixii loogu daray iyo wixii cid kale deyn iyo deeqba wixii la helay inta la isugu geeyay leeriyarad iyo gabaati iyo hibo ayaa lagu bixinaya hodheel inta la tagayo rag aan la garanayn ragaan inantuna garanayn inankuna garanayn la soo ururiyay halka lagu raali galiyay lagu cunteysiiyay barti kaga dareeray oo 9 bilood kadib cilmihii koobaad waxay caana loo siiyay la waay hadaba anigu fig ayadu waxba kuma lahaade hadaba 400 loo soo dhiibo hooyadeed inta loo dhiibay haweenka xaafadda 5 loo qaybiyo ayaa dumar ka soo gaadhay kawaran hadaynu ana idinku horeynaya haday idinku waliba ka baqanaysaan ana idinku horeyn nidaam cusub baynu soo dejinayna ma ogtahay mujtamacu waa inuu horumaraa nidaamka iyo horumarka iyo maaragtay ilbaxnimadu waa inay dadku bulshada dhexdeeda fikrado cusub ka keenaan ma ogtahay wixii awoowayaasha laga dhaxlay hadaa dabada hayso waa boring ma ogtahay waan bedelaynaa waxaan u bedelaynaa inaan ku soo tabcado inanta lafteeduna nafteeda ha soo dhisto ha soo barato ha cagaheeda ha isku taagto horta ha ogaato inay iyadu tahay insaan kaligeed
qodobka waynu ku daraynaa guurkaynu ku daraynaa guurso garaadaysa intaadan guursan baynu odhanaynaa oo labaduba hay soo yara adkaadaan dadka isku daadihiin haddii kale ha loo sinaado odayguna inan yar hadduu guursan kara inanta yarna islaamtuna waa inay yar guursan karta taasi waa mawduuc kale laakiin waxaan leeyahay waxaynu ku daraynaa sidii laysu aroosi jiray sidii laysu guur geelan iyo fardahan iyo waxaan iyo lacagtan iyo waxaan nimanka qaacido nimanku ay dhigteen weeye inay iyagu adiga xoola kaa dhigtaan oo dhahaan inantani reerka waana u dad waana u duunyo yaa dad kaliya matii duunyana waa u tahay nimankaan waxaan ku yidhi haddii lagu kufsado iyo haddaad haraad baktido iyo haddaad gaajooto iyo haddii lagu dhaawaco midna aan ku garanayn ku darso oo aadan liiska ugu jirin gabadhay qabiilkaaga inaadan liiska ugu jirin horta moogtaa weydii aabaha maalinta uu inan u dhasho ayaa magta la weydiiyaa la dhahdaa maxaa kuu dhashay wiil mise gabadh wiil markaasaa lagu qoraa wiil qabiilka qoyskiisa la dhahdaa ninkaas intaas inan wiil buu haystaayo magtaa lagu qoraa inan kasta oo dhasho mag baa laga qaadaa dawladda baa ka hoos dhisan dawladda jirta magtaa inankaasi bixiyo markuu soo dhasho laga bixiyo aabihii ka bixiyo wuxuunbaa inankaa reerkaa u diiwaan gashan inamada ay dhaleen qabiilku odayaasha cuqaasha iyo salaadiinta uma tirsana habluhu 10 hablood hadduu dhalay gabadhay 10 hadduu aabaha dhalay oo aan wiil dhalin goblan buu ka qoray xagga horta aan kuu sheegay adiguna ma tirsanid waxaa tahay nul waxay dhahdaan gaaladu asal ma doorshe goblan iyo gaajatoona lagagama baxo gabdhaha wasay aaminsanaayeen hadda way ogyihiin inay ku cigteen laakiin ma rabaan inay daaqiraan abidkaadna saasaad usoo ahayd marka maadaama oo aad asal ma doorshe ka tahay nimankaas gabaatiga iyo yaradka arooskaaga maalinka arooskaaga intay soo xaadiraan qaadka iyo hilibka iyo lacagta ka dhargaan iska tegaya si kalenu u bedelayna inanka iyo inantii isu soo adkaaday wixii ay soo helaan iyo wixii loogu daro oo deeq iyo hadiyada inta lacag looga dhigo baynu akownada Premier Bank ama dahabshiil akown uga furaynaa familiga cusub oo aynu u dhigaynaa waxaynu ku odhanaynaa akoonkan waxaa lagu qorayaa inanta meherkana waxaynu ka dhigaynaa qadin meherkan hawada ah ee marka 200 halaad baan kugu meherinayaa meel walba isla soo taagaysa 200 halaad buu igu mehersaday ee meel walba lagaaga mushxaradayo ee hadhow toole markay run timaado ee aad furiin dhamacdo kugu noqonayo qool lagugu rooriyo hawale qool lagugu rooriyo kugu noqonayo ilmaha iyo meherkaasi oo cadaabaha ku jirsiiya daatana tiraahdo walaal meherna kaama rabe warqadaydii un bas fas dalqad oo kaliyan ka rabo ya isagana waxaynu odhanaynaa wax macquula inta ka dhigno aynu odhanaynaa qadin baa rabnaa meherka iyo yaradka iyo gabaatiga iyo weliba wixii la idinku daro deeq iyo deyn la isugu keentaro inta lacag laga dhigo waa Premier Bank ama dahabshiil ama bangiyada kale ee markaa inoo jira aynu haysano mujtamac ahaan ayaynu odhanaynaa accountkaasi waa hadhaaga waa gundhiga waa maaragtay familiga cusub qoyska cusub weliba asxaabta intooda waxay haystaan inta wax la isugu daro ha loogu kordhiyo reerkaas cusub ha lagu bilaabo gundhig iyo hadhimo accountkana gabadha ha lagu qoro cidda ay markaa wax ka siinayso ha ka siiso hadday hooyadeed wax uga garato iyo hadday aabaheed ka casuumayso wax uga tarayso iyo hadday wixii ay markaa cid haddaan laga tegi waayo waalidka haddii laga tegi waayo bes ha noqoto hadhaa iyo hadhimo lagu ilaabo accountkaas oo inankaasna halada gabadhaasi giraanta 7ka iyadii xaajigeedu ha wada riixaan reerka cusubiyo ha taabcadaan oo ha tiiraan waxaan ku wariye hata maxaa la yiraahdaaye waa iga kala Soomaaliga maalinta laakiin ay adkaato maalinta uu xaajigan aad jeclaatay isbedelo maalinta uu bilaabo maalinta uu ay taalaba isagoo daacad ku ah ku jecel wax ku hurayo uu soo waayo maalinta ama isaga ay dhibaato gaadho familygaaga iyo qoyskaaga iyo adiga iyo waxaan ku ilmahaaga ee wax aad meel aad u carartay aad weydo intaad culays ku noqon lahayd dhibaay inan dhalatay waa dhibaad bay doonideeda
ninkii baa i dhibaya waxay kasii warwarayeen intaad ku noqon lahayd intaad dhibaat waxaan kuuri culays ku noqon lahayd faamiliye kale akawnaad caanaha ilmahaaga kala soo baxdo reedso hal samayso ka warne anaa idinku horeynaya haddaa ka baqaysaa odayaashayada miyaa la qadinayaa maculimada iyo dadka reerkayaga miyaa la qadinaya anaa idinku horeynaya anaa reer waxba ogolayn anaan reer waxba ogolayn araweela idinku horeynaysa ayaan araweelo number 1 aniga ayaan waxba ogolayn aniga waxaan leeyahay walaalo halkaan iigu shub adaaba Soomaali arasari Soomaali maba u jeedi waxa rabaa inaan iska joogo mogtahay guur dhanku waxaan ku oran anigu kuma jiro laakiin hadda igu kaliftaan anaa idin furo albaabkaas anaa idinku horeyn waxaan dhahaa mataqaana iigu shub walaalo meherka ku dar hibada ku dar gabaatiga ku dar wabillahi alhamdu account kaasaan dhiganaynaa maalintay adkaataan ku baxsanaynaa waa harimo ka warramay fikrad fiican soo maaha habeen wanaagsan baan idin rajaynayaa kowdhaha badeecadan hadlaysa ee hablo badan oo waxaad og jeedaa meelaadan adiguba tegin adigii lagu meheranayay meelaadan ma joogin waxaa lagu meheranayaa meelaadan adigu joogin hooyadaana joogin waxaa ku meheranaya niman baa lacagta bixinaya niman baana la siinayaa $1 kuma lihid $1 biri waxaan ku uri 7 cishaarooska markaa ka baxdaan haddaad weydo haddaad gaajooto waxaad ku uri koob biyaa wax lagugu shubo adoo walahay koob caana haddaad weydo wallahi inaanay nimankaa mid ka midi koob caana kuu shubay ma garad marka waa tashanaynaa maxaa ka jecjeclay guriga walaalayaal maqrixiro habeen wanaagsan baan idin rajaynayaa aad baan idin jeclahay waxaan idin leeyahay jir waad ka badan tihiin jir waad tihiin waase ka badan tihiin intii uu fikradaydaasi cajabisay oo jecel inay hadhimo reerkaas hadhimo inay la hadhaan oo aan waxaan ku uri xataa arooska waxaan ilaabay xataa lacagta arooska xataa arooska ayaynu arooska iyo jaradka iyo gabaatiga iyo hibad iyo waxaba intaynu isku daro ayaynu account baanu samaysanaa arooskii waa la bedelay waxa kaloo cusub waa inaynu bedelaa waa inaynu wax cusub oo kale ku soo daraayo noloshu si ay u qurux badnaato haddii kale waxaynu joogaynaa halkii adduunku 60meeyadii iyo 58 waxaa la 50meeyadii iyo 40meeyadii joogay isku raacnay soo ma habeen wanaagsan